هلو هلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان بالشوين الصوماليات وانا دي سلامي مالكستا وآد شوكتين سو دواada gedigiin meel kastoo aad adduunyada dacaladeeda aad ka joogtiin waan idin salaamaya dumarku marnaba talada Soomaalida kama aysan marnayn talada adduunka dumarku ragga way ka maskax badan yihiin marka wax la dhisayana ragga way kaga fiican yihiin dumarku sida u badan waxa Ilaahay u sameeyay wax la dhiso iyo wax la hagaajiyo iyo wax la koriyo iyo wax la wanaajiyo ayaa Ilaahay u sameeyay hooyooyinku waxa ugu weyn oo ku xisaabtamaan waa caruurtooda hooyadu caruurtaadu hadday ka kala fakato oo reerahii dhalay ka kala kaxaystaan oo saaxiib qaar ka kaxaysto oo daroogista qaar ka kaxaysto oo kuwa jaadka cuna qaar ka kaxaysto hooyadaasi meelna wax ma geyn karto waxna ma noqoto hooyada laakiin caruurteeda dhageysata oo caruurteeda u dhagan nuglaata oo caruurtooda xaaladooda si hoose ula socota oo danta dadka kale iyo dadka qaraabada danta gurigeeda iyo caruurteeda waxay u baahan yihiin ka hormarisaa waxay soo saarataa ilmo qurux badan oo wax bartay oo aan darooga gelin oo aan shaydaan ka qaadan oo ayadii caruurteedii waana laga baqaa hooyada caruurteeda haysataa oo caruurteeda la saaxiibtaay waa hooyada danteeda taqaan waxaan middaa ka wadaa dowladda xasan sheekh Soomaaliya wuxuu ka soo qaaday siduu shalay caqligiisa u fakarayay si ka xun maantana u fakaraya shalay waa ninkii mushaarka ciidanka iyo mushaarka xildhibaanada iyo dalkii Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed inta iska barakiciyo oo dhulkooda booba asaga iyo naagihiisu dhisanayay sidii wuxuu u gacan gashanayay hantida Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed sidii gurigiisa iyo inuu asagu leeyahay iyo reerkiisa qoyskaaga markaad maamulanayso adaa iskale laakiin ummad markaad Soomaaliya madaxweyne ka tahay ama gobolka ama degmo ka ama federaalka madaxweyne wax la wada leeyahay oo Ilaahay ka xaaraantinimeeyay khidmadda ku xalaasha intaan ka ayn yaad mas'uul ka tahay adigu malihid saad rabto uma maamulo kartid dadka iskale waa inaad talada wax ka gelisaa siday maamulka u raba caruurta aad dhashay bad hadday weynaa xoogaa soo koraanoy 12 kor u dhaafaan waxaad rabta aan ka yeelin dharkaad adigu xiro tiraado aanay xiranayna midka iyagu jecel yihiin xiranaya aanad ku qasbi karin ku sheegaya waxaas noo sameeyo waxaas inaan cunaan rabnaa ku sheegaya maxaan ma jecli waxaan waa dhibayaan raba naftooda inaad kala tashato haddii aadan kala tashanna oo damacday inaad maquunisana ilmaha waad iska faysan gacantuuna ka baxaya uuna ka cararaya waxa weeyaan marka waxaa maanta nasiib darra oo ayaan darra oo dowladda xasan sheekh ayaan darrada ugu weyna maxamed cabdullaahi farmaajo dowlad uu ka soo adkeeyay dayr oo Itoobiya ka soo adkeeyay oo shisheeye ka sifeeyay oo nimanka xalana ku xiran iyo nimanka Kismaayo joogay Kenyaati shisheeye nagu haray oo Soomaaliyu ayadu isla boodboodayso ama hays mucaarada ama hays jeclaato laakiin faragelinta shisheeye rag cadaano United Nations ka tabu looga saaray uu emergency ku rogay dalka uga saaray Afrikaanka uga saaray Itoobiya ilaa elatariya nabad gacmaha uu soo qabtay walaalayaalow nadaaya waa idin daynayna xasan gurguurte meeshuu bartii wixiisii ciidankii u dhisan yahay wixiisii shalay farmaajo markuu kursiga qabtay xafiisna ma dhisnay ciidanna ma dhisnay dowlad goboleedyana isma haynin wax gacan ku jiray ma jirin waqti badan bay qaadatay oo waliba Axmed Madoobe iyo Dani uu shacabka kaga guuleystay oo Axmed Madoobana uuna waxba gacan ku haynin magaalada Kismaayo dekada
boobaya ma ogi oo kenyaatigu ku ilaalinaya uu intii kale oo dhan kala baxay dhulka inta shabaab haysata ma ogi dannina wax gacan ugu jira uuna jirinoo shacabkii ama garow ha noqoto ama bare ha noqoto ama gaalkacyo ha noqoto shacabkii dowladda federaalka ay garab taagan yihiin mikrofoonkii la qabtaba iyo lagu wareejiyey xasan sheekh xasan meeshuu bismillaahi raxmaani raxiim oran lahaa meeshuu oran lahaa war waxaagaan alla kuu diyaariyey meel fiican baad ka qabsatay wax ku soo kordhiso wixii kaa dhiman markaan dowladnimada dani iyo madoobe soo qalqaali dani iyo madoobe maxay ay toy soo qanci dani iyo madoobe dowladnimada ku soo hagaaji meeshuu ka dhiilaa oo dhiilaa 3 waa iyo gobolka banaadir 4 waa kuu diyaare labadan iska soo hagaaji meeshuu ka dhiilaa gurguurta oo ciidankiisa inta u taga dhiilaa ciidanow dalku waa dalkii dowladnimo dowladdii madaxweynaha isbedelay ma ogi wax waliba waa sidoodii gurguurte meel aan wax ka jirin yuu wax ka raadin naag haddii nin guursado oo lasoo guursado oo ay maanta oo dhan cidaha qaraabada iyo cidaha dariska ah gurigooda ay taagan tahay oo hadba xaafad u tegayso gurigeedii baa ku baylaha gurigeedii baa ku ximaada oo ninkeedu shaqo markuu uga yimaada qada jirin oo quraac jirin oon sariirtii laga kacay la goglin oo aan xaaskiisii guriga uu u shaqo tagay uuna u soo noqonin guurkaa intay reeraha wareegayso oy hadba reer waraysanaysoy maxaad rabtiin ay leedahay gurigeedaa ku burbura naagtaa iyo ninkaana way ku kala tagaan waayo dumarku iyo raggu reernimaa laysku guursadaa iyo in qoyska number 1 laga dhiga aad leedahay xasan sheekh dowladdii uu madaxweynaha ka noqday wuxuu ka doortay inuu kenya daroogadeedii soo fataho kenya inuu raalli geliyo kenya maxaad naga rabtiin qaadka inaad noo soo daysoon daroogada dalkiina ku soo shubno oon dollar ka qaadana shacabkiina oon shacabkiina daroogaynoon caruurtiina kuwa hadda soo kacayana daroogada bar haya kenya soo daysa qaadkaaga halkaasuu ka wareego imaaraad buu tagay imaaraadama maxaad rabtiin inaan idin faragashanno oon idin burburino oo idaan gaas qodan idin horumar gaarin oon dhexdiina balaayo ku samaysano saasaan idinka rabnaa haya imaaraadow soo dhowaada halkaasuu ka wareegay ajabti ay maxaad rabtiin ajabt waxaan rabaa inaad ila dagaashin Ethiopia iyo webiga Nil inaad la dagaashin okay waa idinla dagaalaynaa dagaal baan dalkayga idin gelinaya xasan sheekh dagaalkii Ethiopia gacantuu maanta kula jira daroogadiina amniga muqdisho isidoon daroogadu sidaan u oolin yaa la kari la'aaye gacanta ugu jira asaga ma oga wuxuu samaynayo dhan inuu asagu mas'uul ka yahay inay asaga ku soo noqonayso waa qofkii caqli leh oo careless aan ahayn oo damiir leh oo aqra iyo adduun labadaba adduunkana magac iyo sharaf raba inuu kaga tago aqrana inuu wax intuu qabto uu ajar ku helo ilaahay agtiisa ugu dhawaado waa qofkii raba xasan gurguurta wuxuu yiri dowlad baan magacaabaya wuxuu yiri yaa al-shabaaba yaa tuug ah yaa maalin dalka gatay yaa maalin dalka xaday yaa maalin batrool bixiyay yaa maalin shacabka laayay yaa dambiile yaa criminal iyo kumaanku qofu laayay jeel ugu jira wax allaalay waa madaxweynaha intuu directly jail to minister kama fakarayo culumaa udiinka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee aan al-shabaabka ahayn ee muslimka ah ee sunniga ah ee 1440 sano aaminsan diinta islaamka haystay ee inuu dilku inay haddaad hal qof disho adduunka dadka joogo dhan baad dishay haddaad hal qof badbaadisana adduunka dadka saaran oo dhan baad badbaadisa waa aayad quraan sidaa aaminsan maanta ninkii caruurtooda laayay oo ku faanayay xalay mukhtaar roobow waxaan fiirsanayay wiil 12 jira oo uu dhalay oo kula jira argagixisada isagoo wata oo uu weydiinayo wariyo caddaan uu weydiinayo ilmahan yare muxuu ahaa wuxuu yiri dariimkayga iyo riyadayday ahayd mid kalaaba jiro inay wiilashaydu maalin isoo garab istaagaan ila galaan jihaadka
yuu la jahaadayaa oo joogay xuduriyo koonfur galbeed yaa la jahaadayay oo joogay ma yuhuud iyo nasaaraa joogtay ma cadowna soo weeraraa joogay ma joogina soomaali baa joogtay marka xasan haddaba caqligiisuu xumaa waa waalwaash markii la doortay honeymoon buu aaday naagaha markii la aroosa waxay dhahaan honeymoon baan aadayna honeymoon buu aadayoo dariskan yuu dalxiis ku soo wareey today imaaraadku warqad bay soo saareen kollay facebook waad ku aragtee imaaraadku waxay yidhaahdeen webiga niil iyo biyaha etoobiya korontada ay qodanayso annagu shuqulkuma lihi shaqada iyadana ma aha wax naga quseeyana ma jirto sababtu maxay tahay etoobiya bad ma lahan laakiin buuraha biyahani ka yimaadaan etoobiya oo afrika waa dhalka iyo adduunka o dhan waddamada ugu biyaha badan ayay ku jirtaa etoobiya bad ma lahan afrika inta kale baday leedahay waddamo badan dhowr waddan baan bad lahay etoobiya bad ma lahan laakiin webiga shabeelle iyo jubba iyo niilkan iyo daawo guddigood biyaha waxay ka keenaan buuraha etoobiya buurahaas biyaha ka keenaya dalka etoobiyay ka yimaadaan etoobiyana iskale waa meelo roobka aad uga da-o waa buurahaas dhulkaa buuralayda ah ayaa biyahan webiyadood arkaysaanu ka yimaadaan annaga baddayada cidu nooma tilmaanto sida aanu ka yeelayno masarna baddeeda ay maraakiibta ku xirato ciduna uma tilmaanto elatariyana cidu uma tilmaanto jabuutina jina iyo maraykan bay ka wada karaysay iyo boqolaal dowladood oo kale ciduna uma tilmaanto etoobiya biyaheeda ayadaa leh nin walba hantidu haysto ayuu isticmaalaya etoobiya bad ma lahane buuraha biyaha abay leedahay oo ilaahay siiyey biyaha qulqulaya yaa dalkeedu iska leeya war etoobiya hadday tiri biyahayga baan xiranaya anigu bad ma lihi oon ka dhalshanaya koronto oon ku ganacsanaya oon ka faa'iidaysanaya ma masar baa u diidi karta masar dhul ay leedahay biyaha lagama xirin dhulka biyaha laga xiray dalka etoobiya iskale soomaaliyana iskama lahan masarna ma lahan dhulka biyuhu waxay ka imanayaan buuraha etoobiya dhulka laga xiray iyo tugaga webiga la xirayna etoobiya iskale oo waa dhul etoobiya leedahay maxaa masar ka quseeya maxaa masar ka galay maxaa uga shaqula masar baddeeda ma etoobiyay wixii imanaya waxay badday masar ay leedahay ka samaynayso ma etoobiyay kala tashataa ma etoobiya wax ka siisaa ma etoobiya cashuur ka shaqaysata waa gardarra cad oo aan ilaahay raalli ka ahay nin waliba wuxuu ilaahay khayraad u siiyey inuu hadduu dheefsado siduu rabu u dheefsan karaa imaaraadka maanta qoraal bay soo qoreen waxay yidhahdeen webigan niil iyo daamka biyaha lagu kaydiyo oy korontada etoobiya ka dhashanayso annagu shuqul kuma lihin shaqa kuma lihin etoobiya right xaq bay u leedahay inay waxeeda say rabto dalkeeda ka yeeshato mana lagu faragelin karo sababtu maxay tahay horaan qof kastaa idiin sheega oo adduunyada wax garanaya ama adduunka siduu u shaqeeya fahmo kiristanku kaama yeelayaan ayagu waddan kiristana waa ku duulaya adiga laakiin muslina inaad waddan kiristana ku duusho oo dowlad kiristanu ka jirto inaad ku duusho iyo inaad wax yeesho kaama yeelayaan of course dalkooda kiristankay madaxdooda kiristankay u hiilinaya dowladooda kiristankay u hiilinaya ma garat ninka la yidhaahdo Esias Afwerki intaasoo san uu meesha taagaya Robert Mugabe intaasoo san uu meesha saarna waa la burburinaya muslimiinta maxaa loo burburin waayey inta maraykan una has ka qaadaynin salaanta una ka qaadaynu leeyahay dalkayga ma soo geli kartaan waa 5 milyan dalka ila tari 5 milyan oo qof baa ku nool populationku waa 5 milyan sababta marka ii sheeg Abiy Ahmed maraykan uu dhii waayo waa burburinaya Soomaaliya waa kii ku soo gurgurayo kala daadiyo kala burburiyo muxuu dhii waayo Robert Mugabe baan burburinaya muxuu dagaal ugu qaadi waay kuma qaadayo Robert Mugabe New York asagoo jooga buu wuxuu raba dhii jiray Gaddafi way dileen
xusni mubaarak way rideen yeman cali ninkii haystay way rideen ma garat waddan muslina soomaaliya saad aragtay faragelinta ugu haya ma dhahayaan because waa wax iska najaraala madaxweyne kiristana iyo dowlad kiristana kiristanku ma burburinayaan maanta adduunka awoodda iyo nucliyarka haystaayo dowladda kiristanka ah ma rabaan unless ayaga danta maraykan iyo ruushku ay kala gasho sida ukraine ayagu way hays burburiyaan hadday rabaan laakiin adoo muslina kuma ogola masar oo dowlad muslinana uma ogolaanayaan inay faragashato oo ay burburiso dalka etoobiya kiristanka xasan sheekh marka waxaa la yidhi dameertay farda la daaqdaa faras bay ismoodaa xasan marka waa ninaan maskaxu wax ku akhrista lahayn maskaxu wax ku fahma lahayn intuu inta meel fadhiisto qofka aamusani dadka waa ka aqli badan yahay intuu afka kale ayoo qoslayay ayuu dhiiqa lagu halagala subaxa saakaa marka mid baa taagan waxaa taagan dowlad buu doortay dowladda xasan gurguurta uu doortay yuu kala tashaday dowladda dalka lagu sheegayaa waa dowlad goboleedyo gobolka banaadir dowlad goboleed dowlad baa ka jirta oo waa gobolka banaadir dowladu gooniyuu leeyahay inta kaleo dhanuna dowladu gooniyay leedahay oo ismaamusho xasan subaxa saaka ah shanta dowlad goboleed iyo gobolka banaadir yuu kala tashaday dowladduu soo dhisay qof uu ka talageliyey ma jirtaa wax uu heshiis la yahay ma jirtaa qoorqoor wuxuu soo magacaabay fiqi oo ninkii dagaalka kula jiraya qoorqoor oo ninkii gurceel burburiyey oo dagaalka ka riday ah isagoo u jeeda inuu oo puntland lacagta uga soo qaatay iyo wadaadadii suufiyada ahaa waa ninkii lacagta uga soo qaatay waa ninkii hubka puntland ka keenayey oo gurceel dadka ku dhameeyey oo dadka gaalkacyo ku dhameeyey asagaiyo mahadsala iyagoo intaa ka soo horjeeda qoorqoor wuxuu wasiirkii arrimaha gudaha ka dhigay asagaa laga rabaa siduu isku waafajin lahaa kalama uuna tashan qoorqoorow yaad u rabtaa gobolkan in la doorto yaa kula shaqayn kara maxay kula tahay kalama uuna tashan lafta gareen mukhtaar roobow intuu jeel ka soo daayey ayuu u abuuray wasiirka cuqaafta diinta iyo cuqaafta isagoo jaranjarta ku soo saaraya si uu ugu bedelo lafta gareen si uu ugu bedelo lafta gareen si uu ugu bedelo oo reer koonfur galbeed isaga hor keeno ayaga isku laayo kabacdina shabeellada hoose intuu u gooyo uu gobolka banaadir ku daro waa waxaa hirshabeelle ilaa hadda ka taagan oo hirshabeelle waxba uga dhismilaayihiin dad isku dayayo in laysku qasbo waxaan rabaa yuu heshiis layahay axmed madoobiya asagu heshiis ma yihi waa maya koonfur galbeed axmed madoobe ninkii ka soo horjeeday ayuu doortay lafta gareen kii ka soo horjeeduu doortay qoorqoor ninkii ka soo horjeeduu wasiir uga dhigay danni ninkii ka soo horjeeduu wasiir uga dhigay dowlad goboleedyada dhibkooda nagama qarsoona maxamed cabdulaahi farmaajo oo 4-5 ku haysta 3 dowlad goboleed iyo somalilan iyo gobolka banaadir inta haysto jubbaland iyo puntland kaliya danni iyo axmed madoobe maqan yihiin yaad arkayseen inay doorashadii hor istaageen yaad arkayseen inay dalka qalqal geliyeen yaad arkayseen inay masiibo laf dhuu gashay ay ku noqdeen subaxa saakaa gurgurtay midna gacanta kuma hayo xildhibaanada uu rabo dowladdu dhisay inay u ansixiyaan dowlad goboleedyo yay matala nimankaanaa soo saarteen xasan marka xataa haddii loo ansixiyo ayadoon amar laga haysan puntland danni lama aadi karo dowladdiisu xasan dowladdiisu ayadoon amar ka haysan danni puntland ma tegi karto somalilandna warkeeda iska daa
koonfur galbeedna warkeeda iska daa iyadoon lafta gareen u amrin lafta gareen shanta dowlad goboleed dowladda Itoobiya ee gurgurta duulaanka ku qaaday asagii mahad salaad iyo mahad karatay duulaanka Mukhtaar Roobowna la soo daayay oo Itoobiya ka sii xanaaqday iyo adduunka inta terroristaha la dagaasho dhan oo wargeyska Afrika iyo wargeyska Amerika iyo wargeyska Yurub intuba ay soo qorayaan oo ka yaaban yihiin Itoobiya Charles bay meesha ka heshay weerarkii lagu qaaday dowladda Itoobiya Abiy Ahmed millions of dollars buu Mareykanku siinaya oo Yurubiyan ku siinaya argagixisadii baa soo weerartay waxa aanad ka fiirsan dhibkaasay leedahay saacadan Itoobiya diyaar waxaa loola yahay si aanay Itoobiya u qabsan al-shabaab oo aanay u gubin taariikhda Kirishtanka oo halkaa tal iyo midda Yuhuudda oo halkaa tal religion Muslim originkii diinta muslimka waa tii asxaabtu timid oo Soomaalida diintu sidaa nagu soo gaartay meelaha laga helo waa herer asal origin of diinta islaamka diinta Yuhuudda meesha laga hela waa Itoobiya iyaduna diinta maxay ay tahay Kirishtanka originkeedii meesha ay taallaa oo lagu ilaaliyaa waa dalka Itoobiya Mareykanku waa soo garab istaagay Itoobiya European Union kuna waa soo garab istaagay Abiy Ahmed markii hore waxaa lagula dagaalayay maxaad faragelinta Soomaaliya uga daysay maxaad intaasoo milyan baad ku qaadanaysay oo dowladadkaagiyo dhaqaalaha kaa soo galayay maxaad u diidanayd faragelinta Soomaaliya maxaad faraha ugala baxday Abiy Ahmed go'aankaasuu qaatay asagoona nabadgeliyo halkaa naga fadhiyo xasan asagaa ku duulay asagaa mahad karatay iyo mahad salaad amar ku siiyey say rabaan inay dalka maamusha in Itoobiya lagu duulo oo lagu sameeyo Abiy Ahmed wax la yiraahdo regime change dalka Itoobiya oo dib loo soo dhiso dowladii TPLF-ka xasan dalkiisii oo dhisnayn oo asagoo burbursan oo dowladu u dhisnayn yuu weerar qaaday uu TPLF ku garab istaagay oo uu weerar ku qaaday dowladda Abiy Ahmed iyo Mustafa Cagjar inuu burburiyo Mustafa Cagjar iyo Abiy Ahmed arrinkaa waxay u noqotay wax gal weyn mar haddii al-shabaab soo weerartay Mareykankii waa u gurmada oo waa u tagay Jabuuti bay ka tageen waa u tagay waa istaageen Western Union-kii already waa u tagay waxaa lagu yiri horaanu kuugu sheegay Soomaaliya inay al-Qaacida iyo al-shabaab haysato horaanu kuugu sheegnay inaanu ku caawinaano xuduudaha kaaga ilaalino Soomaaliyana aan dowlad aanay ka dhismin terroristana dalka aan meesha ku ilaalino oo ay bartaa ku gaajoodaan ay bartaa ku jiraan saacadan la joogo Itoobiya ciidan bay qoranaysaa ciidankaana meel kale looma wado Soomaaliya loo soo wada ciidankii eletariya ka yimid meel kale looma soo wado waa la soo qaadayaa goday baa la soo marsiinayaa sida wararku sheegayaan bakool iyo gadaa la keenaya ma garad waxaa la qaadayaa massive operation oo ilaa Kismaayo Itoobiya ay ku qabanayso oo Itoobiya hagayso xasan sheekh dalka isagaa madaxweyne ka ah saraakiisha Itoobiya wasiirka difaaca dalka Itoobiya Hargeysa ka degay xasan kama hadlin galmudug buu ka degay xasan kama hadlin beledweyne ka degay xasan kama hadlin koonfur galbeed buu ka degay xasan kama hadlin kamana hadli karo awoodeedana ma laha saacadan shanta gobolka Banaadir intaan ka ahayn waxay xuduud la leedahay dowladda Itoobiya dowladii Itoobiyana gidigood xasan waxaa ugu hormaray xasan gurgurtay
dalkii madaxweynaha uu ahaa dowlad goboleedyadii isagoon isagu u tegin oon isagu xiriir la samayn ayaa waxaa uga hormaray oo xiriir iyo heshiis la gaaray dowladda Itoobiya ee Abiy Ahmed uu hogaaminayo. soo ima maqlaysid saacadan la taagan yahay Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh waxaa ku awood badan Abiy Ahmed ayaa Abiy Ahmed waxaa kale u haystaa taageerada shacabka Soomaaliyeed ayuu haystaa. shacabka Soomaaliyeed rajo la'aanta iyo musuqmaasuqa iyo horumar la'aanta iyo la tashi la'aanta iyo dalkooday u cabsi qabaan. subaxa saaka 99% shacabka Soomaaliyeed waxay ku kalsoon yihiin Abiy Ahmed, waxayna diyaar u yihiin intuu Xasan Sheekh Maxamuud dalka ka gadan lahaa oo uu dalka ka qaribi lahaa oo uu qabiil isugu diri lahaa inay Itoobiya garab ka saaraan oo Abiy Ahmed ay la xirta oo ay Abiy Ahmed garabsadaan ilaa maadaama dalkii dowlad ayna ka jirin, dowlad dadka u shaqaynaysa iyo dowlad dadka u adeegaysa. marka arrinka Soomaaliya Xasan isagaa iskubay, asagaa dab isku dhajiyey, asagaa dadkiisii meelaan ahayn Soomaaliya asagaa ka raadiyey dowladnimo, asagaa kalsooni ka raadiyey shisheeye. xasan waa soo dhammaaday safaradii uu dhulka shisheeye ku gelay. xasan waa soo dhammaaday maxay ahayd toy istustuskii iyo show offkii waa soo dhammaaday. xasan realitiga iyo runtiiba hadda taabatay. gabdhaha markii la arooso waa la isbooyal gareeyaayo toddobaadka horeete waxaa laga bixiyaa arooska qaarkood dalxiis baa loo kaxeeyaayo, honeymoon baa loo kaxeeyaayo. wixii oo idil maalintay 7 u dhammaato yaa la yidhahdaa reerka adaa iskale jikada gal, gurigaana adaa iskale nadiifso, gurigaan adaa shaqaale ka ah, adaa dharka qofkii dhaqaya laundry maid adaa ka ah, adigaa kuu ka ah, adigaa cleaner ka ah, adigaa wife ka ah. markaasay dhagiyo indhaha taagtaan oy tiraahdaa gabar yar oo reerkooda inta koray laga yaabo hal mar in la dhaho maanta qadada ku tuur wiigii maalin. markaasay indhiya dhagaha taagtaa tiraahdaa guurkii la sheegaya ma waxana. xasan sheekh hanimuunkiisa waa soo dhammaaday. hanimuunka ku jira iyo ulululadii iyo diyaaradihiis hadba meel dalxiiska uu tagayey loo geynay ugu tagayey sidii gabar nin taajir oo boqor guursaday iyo Meghan Markle waa soo dhammaatay. hadda dhabtii loo tegay, hadda saacadaana la taagaya. xasan koonfur galbeed iyo isaga waa dagaal. dowladda Itoobiya ciidan bay keenaysaa magaalada Barhaw. koonfur galbeed waxaa gacanta ku haynaya dowladda Itoobiya ayaa ku haynaysa gacanta ku haynaysa. maxamedow ilaahay si fudud nagu dhaafiya. ma garad koonfur galbeed ma wadato. koonfur galbeed kaliya maahan 6 gobol ee Jubbooyinka iyo Shabeellaha lafta gareen baa u ah. lafta gareen baa u ah gudoomiye goboleed. lafta gareen baa laga xukumaa. lafta gareen yaa mas-uulka ah. lafta gareen qofka yaqaan iyo qofkaan aqoonino waa reegado. gado ku dhasho ku korwalaas ku soo leekaado. talada gobolka gado lafta gareen iyo gobolka gado waa isku talo. jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka gado waa isku talo. 3 gado iyo 2 jubbooyin waayo dadka dhulka degan 6 gobol Axmed Madoobe Kismaayo ku xiran yahay. Kenyana wadata dhowr iyo 10 sanayna leynayeen dhirtoodii shidayeen oo ay xaalufiyeen. mas'an cid ku kalsoon iyo cid rabtaa ma jirto. dhulkoodii shabaab baa ka qaadatay. xasan gurgurte waa dadku daraad leynayo biyaha webiga ka gadaya indhaxad oo biyaha webigooda ka gadayay, beerahooda la boobay, gabdhahooda la kufsanayay. xasan sheekh
dowladdii koonfur galbeed wuxuu ku bilaabay mahad salaad intuu u diray dil guddoomiyihii gobolka marko ayaa loo dilay qabiil maadaama uuna ogolayn in dhul diiday in marka la qaato in dhulkiisa la qaato in beerahooda la boobo oo uu dadkii iskalaa gacantooda ku soo custeen maamulkii marko wuxuu dilay xasan sheekh isla markiiba wuxuu dilay guddoomiyihii gobolka magaalada marko wuxuu kaloo dilay wasiirkii diinta iyo uqaafta koonfur galbeed ayuu qarax mahad salaad iyo mahad karatay oo xasan sheekh amrayo ay ku dileen magaalada baydhabo ma garat marka koonfur galbeed way ogsoon tahay arrinka wayna ka waraysa gobolka gado oo anigu ka soo jeedo jubbada dhexe iyo jubbada hoose may iyo maxaa tiri dadka isla degan waxaa 6 gobol maanta mas-uulka oo wax laga weydiinaya oo nutalada ugu weyni ka go'aysa wiilka reegadood ee la yiraahdo lafta gareen cabdicasiis lafta gareen ana udub dhaxaadka nabad iyo nolol ma garat baanu 100% garab taaganahay 6 gobol ee Soomaaliya ugu kheyraadka badan dadkiisu waa degan yihiin dadkiisu gobolka gaday degan yihiin jubbada hoose degan yihiin jubbada dhexe degan yihiin shabeellada hoose degan yihiin shabeellaan bay degan yihiin bakool bay degan yihiin waana nin shacabka Soomaaliyeed halka degan oo dhan may iyo maxaa tiri ay ku kalsoon yihiin oo kalsoonidiisa haysta marka 6 gobol lafta gareen bartuu mariyo ayay maraysa afgooya lafta gareen markuu fariistana meel loo dhaafayaa ma jirto baraawe markay Itoobiya soo fariisato meel loo dhaafaya ma jirto waxa ku soo haray reegado Kenya dhigtay reegado Kenya iyo wixii jaadkeeda soo daayay iyo wixii Kenya wata reegada ma taageersana mana aan taageerayno mana aan rabno Itoobiya horaanba waa noo joogtay garbaharey bay noo joogtaa buurdhuubay noo joogtaa baardheeray noo joogtaa ciidanka Itoobiya walaalnimayna tusiyaan waana garab istaageen gobolkii la dhihi jiray Jubbaland waxaa xorka Axmed Madoobe iyo al-shabaab gobolka gado magaalooyinka iyagu waanu ganacsanaa xor baanu nahay Axmed Madoobana nama xukumo al-shabaabna nama xukunto dowladda Soomaaliya oo calanka buluuga oo ka babanayo annaga kaliya yaa ka jirna meel calanka buluuga ah ka babanayo oo dadka lagu dhaxaynan dadka lagu leeyay Itoobiya marka horaan ba annaga waa nala joogtay wayna na garab istaagtay inaan Axmed Madoobana na qabsan Kenyana na qabsan al-shabaabna na qabsan haddana waxaan garab taaganahay walaalaha iyaga lagu duulay ee kilka shanaad iyo Mustafa Cagjar waa garab taagana nabad iyo nolol baan nabad iyo nolol waxaan garab taaganahay Mustafa Cagjar oo walaal wanaagsan oo gobolkiisa iyo dadkiisa Soomaaliyeed isku keenay Soomaalina soo dhaweeyoon dib u geysan oo Soomaalida xabiib abaay soo dhawaa waaydi salaam aan wax khilaaf ka dhicin walaalka iyo Mustafa Cagjar odaynimo ku gaa wuu joojiyay liyo booliskii iyo Itoobiyaankii dadka cagta mari jiray waa u joojiyay marka nabad iyo nolol Abi Axmed waa nabad iyo nolol Mustafa Cagjarna waa nabad iyo nolol lafta gareenna waa nabad iyo nolol qoorqoorna waa nabad iyo nolol reergadana waa nabad iyo nolol annagu waxaan 100% garab taaganahay lafta gareen iyo Mustafa Cagjar iyo Abi Axmed haddaanu nahay shacabka gobolka gado waxay walaalaha iyo Jubbaland lixda gobol ee Jubbooyinka iyo koonfur galbeed 6 gobol way isku xiran yihiin dad isdhex degan oo isku dhex jira ayaa degan oo may iyo maxaa tiri isugu jira gadaa la wada degan yahay jubbada hoose la wada degan yahay jubbada dhexe la wada degan yahay bay baa la wada degan yahay bakool baa la wada degan yahay dad sidaa madaxa isugu jira haysta oo Soomaaliya oo isku dana oon istilin oo balaayadan iyo hoogaan iyo ba'aan iyo qabiilkan gobolada dhexe laga keenay ka fayow oo xoogoodii xoolahooda cuna oo beeralay iyo xoololaya ayaa degan marka xasan 6 gobol shughul kuma laha
baraaway Ethiopia imaanaysa ciidankii la tariyo oo ciidamo 10 kun oo la tariyaan la socdaana waa la keenaya siyaasaddu marka ciidankii la soo tababaray ciidankii la tariya ciidankii Ethiopia annaga kansan Ahmed Madoobe markuu Kenyatta kansaday dhowr iyo 10 sano jooga cid ka saarta waa la waa cid faragashata waa la waa because dawlad goboleedku federaalka wuxuu ku dhisan yahay dawlad goboleedku inuu sidoo rabo u tashan karo inuu qofku dantiisa ka arko la ganacsan karo inuu keensan karo qofku rabo federaalka ayaa u ogolaanaya imaaraadku waa kuwii dhoobnaa Puntland waa kuwa dhooban Somaliland oo dekada berbera ka dhistay ayadan dawladda federaalka u ogolaan oo maxay tahay inta la dagaalayo oo dalka laga saaray ma garad maalin walba berbera ka soo dagay iyo Hargeysa imaaraadku Kenyatta annagoo raalli federaalka uga ahay waa kuwa nooban kismaayo maxay u diidaya marka lafta gareen iyo 6 gobol Ethiopian maxay u diidi kara ila tariyaanka yaa u diidi kara cidna ma diidi karto had aslonga ay gobolada diyaar ka yihiin dadka gobolka gada degan iyo dadka degan gobolka gobolada Bay iyo Bakool iyo Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose aslonga ay dadku raalli ka yihiin cid u diidi karta ma jirto xasanna uu ka qaban karaa ma jirto xasan hadii lafta gareen uu yiraahdo koonfur galbeed ma soo geli kartid ma soo geli karo awood uu ku soo galana malaha waayo dawlad goboleedkaas ayaa gobolka ka taliya waad maqlayseen daniyo ku qudbaynayo farmaajo kule waraanidiin imaadu yiri farmaajo waan diin waraadigu noogu imo dhuusamareeb baan niri waa diid inna lama qasbi karo aeroboorka dawlad goboleed baa jooga Soomaaliya dhulkana xoog laguma soo mari karo marka warka meeshaas uu kaaga dhamaad marka xasan gurgurti waxa weeyaan hani muukiise waa soo dhamaaday hawlaha ay u bilaabat yaa u ansixinaya asaga iyo xasan iyo wiilku sadaga u yahay oo gabadhiisa qaba dawladnimadii dhan oo la wada lahaa wuxuu ka dhigay qoyskiis dawladii hadda ka horeysana isaga iyo labadiisa naagood yaa maamulanaya hantida shacabka yaa boobayay dhulka shacabka yaa mushaarka ciidanka guriga ku dhisanay oo birima boos iyo booska oo dhulka dadka wada boobay oo hantida dhulka boobay dawladda boobay oo mushaarka ciidanka qaadanay oo shidaalka kontract waa qoys xasan dalka 30 milyan leedahay mar walba wuxuu ka dhigayaa qoyskiisa shalayna asaga naagiisa dawladda maamulay maantana asaga iyo wiilku sadaga u yahay gabadhiisa qaba iyo Soomaaliya gacanta u gali oo u maleeyayba dawladnimadu waa inay inta tahay xasan iyo xamse Soomaalina ma matala cid ay matalaana ma jirto taladan la roogin waa lagu rafaadaa subax saaka ay xasan haysata xasan sheekh subax saaka yaa haysata baarlamaankii jaa diyaar mooshin baa loo diyaariyay in dawladooda waxay doorteen iyo al-shabaabka ay doorteen lagu celiyo hadday lacag bixiyaan oo xildhibaanada lacag siiyaan oo soo dhaafaan xagee wasiiradu ka shaqeynaya xagee tagaya yaa loo tagaya bal iga sheekee yaa dawlad goboleedka xasan ku kalsoon وحسن وشقينا يا حسن وتجيو سيرو غير فربضن أيان إدين رجينية حسن هباركي ومدو لجنا حي ما نقتل إلا الدورتين حد نقتل لجنا حي أيا حسن قبصتي حسن دولة ما بيسكر مدح ويننا من أكر مسكح دولة لجو معمول كراد صد المليون لجو جامي كرنا حسن الشيخ ملحن حسن وحقوق في عن حسن انت فرماجة ويرتد حلك كوريج فرماجة انت ويرتد مركز ربط أبي أحمد إن الله هذا الشباب انت قلت ما دابتر على أي تركيا فرماجة إلى هذا الصين فرماجة وإلى هذا إلى هذا الصين هذا حسن waxaan kugu niri markaad kursiga kortay doofaar waligii ma daahiro oo ma daaya dabeecadiisi haddii Dubai iyo Daraan la geeyo doofaar waligii ma daahiro oo ma daaya dabeecadiisi maama Soomaaliyeed baa jirta
qof ku sana haddaad moogaato ood maalinta dambe bistaha ka soo rogto qofkiibaa ku hoos jira. xasankii shalay oo duqoobay oo sii dhumay oo macanka ka sii noqday oo caqligii iyo maskaxdii ka sii dhunto ka sii baab'aday ayaa meesha maraya. ma garad xasan dalkan ma burburin kartid. maraykan baa burburin waaye, tigreya baa burburin waaye, gaaloo dhan baa isa soo kaashatay, kenyaa burburin weyse. dalkan dad baa iskale, dad baana ilaashada, aqoon-yahano ah, waxbartay, dhallinyaro iyo hooyo iyo waalid iyo wiil, dad baa iskale. waa dhul dad leeyahay, waa dhaxalka carruurtayada, waa dhulkayagii hooyo. xasan ilaahay calaf buu kaaga dhigay kursigaa inaad korto, laakiin waxaad noqotay tuke nasiib uu caano ku arka waaleeya, laakiin calaf uu ku cabo ma lahan. markuu arko wuu farxaa tuke, markuu arko haruub caano oo meel yaala inta soo ordo buqarka uga istaaga, markaasuu haruubka caanaha ka daataa, markaasuu is yidhahdaa ciidda kacab, markaasay ina minid dhulku laqaa, caanihii dhulku laqaa, markaasuu second haruubkii caanuhu arkay oo ku farxay ka naxaa, markay ka daataanu meel cidlaa ka istaaga. xasan tukaata subaxasaaka ah. xasanow waxaa taa kuu sii dheer, ilaahigii xilka kuu dhiibay waa ku xisaabinaya sidii kuwii kaa horreeyey oo awoodda qabiil sheegan jiray, oo kibirka sheegan jiray, oo mooryaannimada sheegan jiray, oo warlordka sheegan jiray, oo ku faani jiray maxamed siyaad barraan ridni, maxamed siyaad barre. kadib inay laami dadka u dhisaan nin soomaaliya awood u yeeshta oon farmaajo ka ahayn waa la waay. nin soomaaliya shacabka dekad u dhisa waa awood u yeeshta waa la waay. nin soomaaliya oo dowladnimo iskuulka firi uga dhiga oo isbitaalka firi uga dhiga maxamed siyaad dabadiis allaha u naxariistee waa la waay. nin dalkan iyo dadkan isku keena oo midnimadii soo celiyey soomaaliya waa la waayey maxamed siyaad barre dabadiis. nin jaamacad firi ka dhiga waa la waayey maxamed siyaad barre dabadiis. nin dadka iyo dalka soomaaliyeed maxay ahayd toy mideeya oo horumar u soo saaray siday ugu kalsoonaayeen maxamed farmaajo, maxamed siyaad barre, maxamed farmaajo. weliba maxamed farmaajo waa nugulya, ma ahan maxamed siyaad barre oo kale, waa nin nugul. maxamed siyaad barre dalka 1969 dhammaadkiisa oktoobar buu qabsaday. 1974na baadiyaha waa markuu baadiyaha iskuullada dadka afka soomaaliga intuu sameeyey, baadiyaha sabuuradaha iyo dhallinyarada geynayay iyo macallimiinta. waa markuu diyaaradaha kaargooga intuu qaatay soomaalidii maanta kuwa dhammaanayoo kaleetay abaaraha intuu u tegay jeexdin iyo caynaba iyo intuu ka soo guray tagdheer iyo waqooyi iyo galgaduud iyo mudug intuu ka soo guray iyo bari iyo puntland intuu ka soo guray webiyada qarkooda uu ku soo furayay, webiga shabeello biyuhu saa u walax leeyihiin iyo beeruhu oo cagafta sidii intuu u geliyey reer walba intaasoo higtara beera u siiyey, iskuullada iyo jaamacadiina uu dhisay. dadka maanta wax ka yaqaan soomaaliya wax ka maamula waa dadka iyaga. 1977 markuu xukunka hayay 7 sano waa markuu intuu afrika oo dhan soo xoreeyey oo jabuuti xoreeyey oo wax walba xareeyey uu duulay soomaali galbeed inuu xoreeyo oo etoobiya 100 kilomitir uu u jirsaday. dowladda 100 sano jirtay. waa wiilka soomaaliga ah waxay ku leeyihin maxamed siyaad barraa kana war maxamed siyaad barre wuxuu dalkan uga tagay bay dadku dheefsanayaan. dekeduhu u dhisay bay dheefsanayaan. dekada berberuu dhis, midda baribuu dhiso boosaaso, midda muqdishuu dhis, midda kismaayuu dhis, midda markuu dhis. waxa loo baxsanayo oo dadku waxay cunaan kala soo degayaan amba wax ka dhoofsanayaan waa dekeduhu u dhisay. afkaanaad qoraysiin oo dadka uga sirqarsanaysin waa afku inoo sameeyey. aqoontan iyo aqoon-yahankan lagu sheegaya waa wuxuu asagu jaamacad ka bixiyey iyo wuxuu sida farmaajo asagu dabadaha waxbarasho ugu diray. ma garat
waxa weeyaan warsiyaad barre jisaar soomaali waxa alla u rogay waa jisaarnimo carwiil maxamed siyaad la mid a ii sheeg giddigood dadkii waa dhammeeyeen dadkiina waa laayeen dadkiina way rogeen waxay dhahan maxamed siyaad barre waqooyi buu dagaal ku qaaday oo miduu ku qaadayay ninkii la dhihi jiray ay ku qaadeen ninkaan maanta taagan ninka maanta jooga muuse bixi iyo ninkii la dhihi jiray ina xigaal dagaalkii ay hogaaminayeen ee lagu qaaday iyo siilaanyo ee lagu qaaday beesha garxajis ee lagu xasuuqii burca ka dhacay hargeysa ka dhacay berbere ka dhacay ee isaaq oo dhan macal inta loo soo kaxaystay maamuladii kaleete ay lagu qaaday lagu dabarjarayay ilaa 96 lagu dabarjarayay garxajiska miyaanay kaasi xasuuqahayn waxay USC soomaali oo dhan xasuuqdoo dhacdoo boobtay miyaanay ahayn xasuuq danni wuxuu maanta boosaaso ka geysanayay kuwa meeshaan waxay igu soo qaraan barkaduu nagu riday wuxuu danni xasuuq miyaanay ahayn wuxuu boosaaso ka geysanayay daraab miyaanay xasuuq ahayn waxa weeyaan xasuuq qaajo ah yaa soomaaliya ka dhacay maxamed siyaad barre shacabka soomaaliyeed mana xasuuqin xasuuqna uma quurin ee amxaaro iyo qurun iyo bakti jaajuusiin wadata oo dalku maanta meeshuu joogo iyo baaba iyo hoogga iyo burburka 30 sano la soo maray ayuu dalka ka ilaalinaya dadka ka badbaadinay kuwa maantana haysta yuu dalka ka badbaadinay kuwa bad iyo bariba xaraashaya yuu dadka ka badbaadinay kuwa terrorista oo maanta al-shabaabka oo dadka qarxinaya yuu maanta ka badbaadinayay dadka wax alla wuxuu maxamed la dagaalayay ilaahay ha u naxariista maxamed siyaad waa soo baxeen maanta maxamed siyaad barra markuu joogay carruurta inta taariibto gabdhaha soomaaliyeed liibiyaan inta gacmihiya lugaha ka xiro ayadoo dhagaha ka dhiigaysa iyo madaxa fiidyow kama soo duubi jirin mana ka soo duubi karin intuu ku duulow liibiya oo dhan dhulka la soo simi lahaa ma garatay sacuudiguna sida aad aragtay awooday gabdhaha yaga ugu galaan ma aysan lahayn sacuudiga waana xasuustaa niyuuskaa laga sheegay salaad darbi bay qabsadeen oo dheheen lacag buu naga xad maxamed siyaad barre baa lasoo waxaa loo sheegay automatically buu inta ula hadlay buu diyaaradu soo saar uu yiri subcadayada iyo magacaygaad ku dheelaysaan ninkaa fanaan weeyaan mana dhihi kartaan waxbuu naga xad habeennimo ii soo saara diyaarad inta u diray buu ka soo qaatay fanaanadii caasho cabdow gabaday dhashay bay sacuudigu dheheen waxaan ku qabanay iyadoona niman la tumanayso sina samaynayso caasho cabdow maxamed siyaad barre ayagoo le waa tooganaynaa qoortaan ka jarayna maxamed siyaad barre isla markiiba intuu ciidan u diray ayuu yidhi ma annagaad subcadda iyada rabtiin inaad ku dheeshin annagoo dad muslimiina war noo sii daaya gabdhahayaga ha ku dhegdheginine oo uu nimankiinaa qaldanoo aan dhaqan lahayn oo gabdhaha ku dhegdhegay sidiiba automatically gabadhii uga soo kaxeeyo diyaarad uga soo saar maxamed siyaad barre wuxuu ilaalin jiray subcadda iyo sharafta iyo dignatiga iyo damiirka ummadda soomaaliyeed buu ilaalin jiray maxamed siyaad barre dalkan shisheeyuu ka ilaalin jiray dad nin ka aqoon badan oo ka maskax badan waxaa la yidhi ninka ugu ildheer baa dadka ugu ayaan daran dad aan dowladnimo u xarbisnayn oon horumar u xarbisnayn oo ilaahay nimco ka tan badan siiyey yay soomaalidu noqoto maraykanka ayayna ka jirin isbitaal firiya jaamacad firiya maraykanka kama jirto soomaaliyana waxay ka jirto laga sameeyey 74 iyo 78 iyo 80 something ilaa dowladdii ka dhacday ninkaan nin la mida soomaaliya way u heshiin lada waxay raadinaysaa maxamed siyaad barre allaha u naxariisto iskuulladii firiiga ahaa bay shacabku raadinaya isbitaalladii firiiga ahaa bay raadinayaan amnigii qofkii qof dila tiirka la taagayay bay raadinayaan ninkii xoolaha dadweynaha cuna tiirka la taagay waa xasuustaa subixii markaan soo toosna raadiyo muqdisho xatooya xoolaha dadweyne ninkii xadow go-aaya markay ka soo yeerto nin xoolo dowladeed cunay baa tiirka u taagay maxamed siyaad barraa kan yeelay maxamed siyaad barraa kan maxamed siyaad barre dal iyo dabadba waa tagteen hanti la leeyahay maxamed siyaad barraa le ma aragteen carruurtiisaa le hanti la leeyahay ma aragteen maydan arkin
maydan qariseen haddaad arki lahaydeen taasaa idiin caddaynaysa maxamed siyaad allaha u naxariiste corrupted tuug inuuna ahayn sababta dalku u dhismayey oo dadku horumarka ugu jiray oo jaamacadii iyo isbitaalladu firiiga u ahayd calaykum assalaam inay ahayd maxamed siyaad bare inuuna asagu hantida xadayni uu shacabka u qaybinayey oo shacabka wuxu qabanayay oo dalka u dhisayey oo laamiyada inoo dhisayo meel walba inoo qurxinay ummadda soomaaliyeed hurdada ka toosa dalkeennii waxaa qabsaday xasan oo aan maamul garanayn itaalka waxaa laga yaabaa xasan inuu dadaalayo ooba sidaan dadaal ka tahay wax caqligiisa asaga ku siman waxaa laga yaabaa waxaa leh inayna ku jirin ee asaga caqligiisu taa la tahay aryaa wax allaalay wixii dowladii farmaajo ka soo horjeeday wax allaalay waxuu farmaajo xiray wax allaalay waxuu farmaajo diidanay wixii oo dhan samey waxaa laga yaabaa farmaajo la xintan kaliya inay u muuqato farmaajo la xintan inay u muuqato farmaajo taariikhdiisii burburi kaliya inay u muuqataan laga yaabaa war maxamed siyaad bare oo 32 sano sii mootan ayaa taariikhdiisii burburi ladahay xasan gurguurtow hadday taasi kugu jirto laamiga afgooya iyo baydhabo u socdaan balxad u dhaxeeya oo jawhar u sii socda waxaa dhisay maxamed cabdulaahi farmaajo ma qarin kartid stadiumkina asagaa dhisay ma qarin kartid guryihii xisbigana asagaa dhisay ma qarin kartid ciidankan tirada badanna waa taariikhdii farmaajo gorgor iyo haramcad iyo duufaan iyo dalab maxamed farmaajaa dhisay ma qarin kartid hawadii maxamed farmaajaa soo celiyey gurgurtow ma celin kartid waa taariikh qorantay ma garat maxay ahayd toy baddii maxamed cabdulaahi farmaajaa soo celiyey ma qarin kartid gabre asagaa fillada ka saaray ma qarin kartid taariikhda nabad iyo nolol ee farmaajo iyo cali yare iyo farxaan qaroole iyo jenaraal odowaa iyo cumar finish iyo qoorqoor iyo lafta gareen raggaasu taariikhday galeen waxay qabteen rag badan oo kale oo mahdi guuleed ka mid yahay yaa taariikhda wax ku leh oo saalixudiin ninkii dhintay injineerkii dhintay baa ku leh waa recording soomaalidu daawato oo ay qalbiga ku qaboojisato xasan marka waxaad samaynaysaa ay ka yaabto war farmaajo wuxuu bedelay gabdhaha soomaaliyeed iyo haweenka soomaaliyeed wixii aanu ragga soomaaliyeed ka aaminsanayn oo ahayd nin ragu maharin nin gaalo iska dhicin karaa maharin nin soomaaliya oo aan tuugahaynu maharin nin soomaaliya oo daacadu maharin barigii farmaajo intaanu imaan hooyooyinka waxaanu ku fakeraynay maraykanka iyo kanadiyaanka iyo britishka iyo australiyaanka gabdhaha siiya ayagaa caqli ku jiraa si ay dalka idinku badbaadiyaan gabdhaha siiyaa nugu jirtay farmaajo ragga soomaaliyeed sumcaddoodiibuu kor u soo qaada wuxuuna tusay inay rag xalaalu raggii ka hareen inay rag dalka jecelo oo wadaniyiinuhu raggii ka hareen in rag iska dhicin kara oon gaalka sida xasan sheekh qoorta u roganaynin xasan daahir aweys baa ka yaabay qoorta ansaa war maxaa ninka qoorta ka jabiyuu yiri soomaad garanin ayaa ka haray farmaajo sumcaddii ragga soomaaliyeed ayuu kor u qaaday qiimihii ragga soomaaliyeed ayuu kor u qaaday caruurta soomaaliyeed iyo dal iyo dibadba u yahay aabba ku dayasho mudan ma fahamta marka diinkii wuxuu yidhi afkaan ku soo daaqahayay doog waxadallaana ku daaqaynin caws qallalan inaana ku daaqaynin dadku farmaajay rabaan waddaninimadii farmaajay rabaan geesinimadii farmaajay rabaan naxariistii farmaajay rabaan horu kalsoonidii farmaajay rabaan xasan sheekh 4 ilma adeeradiisa yaa qoryo markuu soo xirayey shirkii ciidankii lagu tababarayey tixirada turkiga lagu tababarayey 4 ilma adeeradiisoo qoryo dheerdheer sidata yaa dhinacyada saa uga taagnay
waxa laga ilaalinayaa ciidanka qaranka wuxuu yiri maxamed cabdullaahi farmaajo ciidanka qaranku hadduuna ilaalin ma ajnabi baa ilaalinaya haddaanan ciidanka ku kalsoonayn maxaan madaxweyne ka ah maan dalka isaga tago wiilka gadaal ka taagnaa wiilka xasan sheekh gadaal ka taagnaa buu ah farmaajo ma bedelin wixii ku wareegsanaa kuwii xasan ku wareegsanaaba ahayd farmaajo ma bedelin kuwa cuntada madaxtooyada 5 sano barka cuntada ka karinayay oo dadka ka shaqaynayay waad arkaysan maalinta xulka dhiibayay siday gabadhu u mahad sheeganaysa kuwii xasan sheekh ka tagay bay ahayd wax bedel iyo wax burburi iyo waxa weeyaan taariikhda farmaajo mid la burburin kara maahan mid la tirtiri kara maahan qaluubta shacabka Soomaaliyeed bay ku qoranta qayraadu fara badan ayaan walaalayaan idin rajaynaya tala fiidiyowgayga waxaa saaran restriction kolay bisha markay dhammaan rabto ka bixi doona insha Allah qayraadu fara badan ayaan idin rajaynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh